بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن صاحب بيال سود وهذا رئيس الوزراء دلك إثيوبيا أبي أحمد انتي وحوق جيسا يحوله سوي جينيي وديار جرو دجال وكوقعد دلك إريتريا يسدو كلا عليتن كسياسة فرق قد كيسا أي بيوجسه قلين دولة مصر أي انتي وإريتريا كوسي جيدي وح أي اسكو حريريسي guud ahaanba dalka Ethiopia iyadoo gacanta ku dhigtay Suudaan, Eritrea, Djibouti, Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Kenya oo ay doonayso markaan inay isagana heshiis markaasi wax isdhaafsi iyo sidoo kale dhanka amniga ay la gaarto madaxweynaha dalka Kenya William Ruto. Ethiopia xaalad cakiran ay u muuqataa inay galayso. Abiy Ahmedna waxa uu wali isku adkeenayaa inuu iska indhatiro waxyaabaha agagaarkiisa iyo sidoo kale diblomaasiyadda gobolka Geeska Afrika oo si weyn isu bedelaysa. Warbixintan aan idinla wadaagayo waxaa daawacday BBC laanta afka Oromada waxayna si cad uga warantay xaaladda cakiran ee ku soo wajahan dalka Ethiopia iyo sidoo kale guud ahaanba shacabka dalkaasi iyadoo gobolku uu galay xiisad ka duwan xiisadihii hore. Ethiopia Geeska Afrika iyadoo boqortooyo ka ah haddii aad ogeyd waxaa muuqata markan inay bisad ka noqon doonto haddii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed arrimaha diblomaasiyadda caalamka uusan wax ka bedelin. dowladda waddanka Masar iyo Ethiopia si aad la wada socoteen waxay markaas khilaaf adag uu kala dhaxeeyay ama ay isku haysteen biyo xireenka ay dowladda Ethiopia wabiga Niil ka sameynayso iyadoona dhammaanba dowladda waddanka Masar madaxdeedu ay si adag uga soo horjeesteen in biyo xireenkaasi dowladda Ethiopia ay sameyso. Ethiopia iyo Abiy Ahmed ba dhagaha ay ka furaysteen arrintaas biyo xireenkiina waa la dhameystiray inkastoo shaqo bilowgiisu uu wax badan ay ka dhiman yihiin. wixii intaas ka dambeeyay dowladda Masar iyadoo markaasi ka faa'iideysanaysa waayo aragnimadii ay ka dhaxashay dowladda Soomaaliya u fiirsa hadalkaasi waxaad ogeydeen Soomaaliya iyo Ethiopia inay xiisadooda cirka ay gashay markii Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi ay heshiis dhinaca badda ay wada galeen. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisu waxay ku guuleysatay inay beesha caalamka iyo arrimaha diblomaasiyadda Ethiopia uga adkaato taasoo Abiy Ahmed afkiisa uu ka qirtay isagoo tilmaamay in xasan sheekh maxamuud uu adduunka oo dhan ku dacweeyay sidoo kalena inuu la kulmo oo arrimaha markaas khilaafka labada dowladood ka dhaxeeya uu kala hadlo uu diiday. ugu dambeynna Turkiga iyo Rajab Tayyip Erdogan arinta uu soo farageliyeen labadii hogaamiyana magaalada Ankara la isugu geeyay heshiisyada markaas ay galeen xiisaduna sidaas ay ku qabowday kadib markii Ethiopia ay tilmaantay inay joojinayso ka shaqaysiinta heshiiskii Muuse Biixi ay la galeen. masaarida oo arintaasi markan ka faa'iideysanaysa waxa ay istustay inay mar kale iyaduna arrimaha diblomaasiyadda dowladda Ethiopia ay markaas ku garaacdo tii ayaana muuqata. hadda warbixintan aan idin la wadaagayo dowladda waddanka Djibouti ayaa waxa ay ka cadhaysiinaysaa sidoo kalena ay iska indhatiraysaa dowladda waddanka Ethiopia. Masar ayaa waxa la siiyay mid ka mid ah dekedaha waaweyn ee dalka Djibouti ku yaala Ethiopiana daris la ah. Djibouti waa mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee dalka Ethiopia waxna ka dhoofsado sidoo kalena wax kala soo dago. arintan ayaa lagu tilmaamay inay khatar amni ku tahay dowladda waddanka Ethiopia. Abiy Ahmed xukuumaddiisu ilaa iyo hadda wax war kama aysan soo saarin arintan balse waxaa la rajaynayaa in saacadaha soo socda dowladdiisu ay arintan ka hadli doonto. madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dhinaca kale waxa la tilmaamay inuu tallaabadan u qaaday kadib markii xukuumadda Abiy Ahmed ay tilmaantay inay ka shaqeynayso sidoo kalena ay taageerayso in Anfarta Djibouti Ethiopia iyo Eritrea degan ay kala shaqeynayso sidii ay uga goosan lahaayeen labada wadan ee kale waa Eritrea iyo sidoo kale dalka Djibouti. Masar way iskantay Soomaaliya ayay ciidamo geysay waxay taageeraysaa Eritrea oo xiisad ay kala dhaxayso dalka Ethiopia. Djibouti dekedaheedii ay Ethiopia wax kala soo degaysay ayay haddana soo dhex fadhiisatay Suudaan Abdel Fattah al-Burhan iyo ciidamadiisa ayay taageeraysaa. warbixin adag oo culus oo Ethiopia khatar ku ah ayaan saaxiibayaal halkan idin kula wadaagaya. soo dhawaada nagu soo biir barteena YouTube-ka subscribe ku samee sidoo kalena muuqaalkan la sii wadaag saaxiibada si uu meel dheer u gaaro. haddii aad hore noola sii joogtayna markaas sii share garay. waa 15 bisha November sanada 2025 aynu ku bilownay warbaahinta kala gedsan ee dalka Ethiopia arrimihiisa ka faaloota
ayaa waxa ay si adag markaan u qorayaan xiisad cusub oo laga yaabo inay markaan cirka isku shareerto oo ka dhex tolanaysa Djibouti iyo sidoo kale dalka Ethiopia. madaxweynaha dalka Djibouti ninka lagu magacaabo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu qaaday tallaabo la tilmaamay inay ka cadhaysiinayso ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ninka lagu magacaabo Abiy Ahmed iyo sidoo kale xukuumaddiisa. Djibouti oo lagu og yahay inay inta badan wadamada caalamka dalkeeda ugu yeedho sidoo kalena dekado iyo markaas dhul kala gedsanba ay ka kirayso si markaas ay uga dhigtaan saldhigyo military ayaa markan waxa ay heshiis gaareen dowladda wadanka Masar iyo sidoo kale madaxweynaha dalkaasi Abdel Fattah al-Sisi kaas oo doonaya in Ethiopia ku rido jidgooyooyin waaweyn afarta dhinacna markaas uu ka istaago sida isagu uu qorsheynayo. Abdel Fattah al-Sisi ayaa waxa la tilmaamay in heshiis maalgelin dekadeed oo dekadaha dalka Djibouti mid ka mid ah inuu dowladda wadanka Djibouti iyo Ismaaciil Cumar Geelle la gaaray shaqaduna ayba bilaabmayso maalmaha iyo toddobaadyada soo socda sida la tilmaamay. haddaba hadalkan waxa la tilmaamay in dowladda Ethiopia ay aad uga xumaatay balse aysan wali wax war ka soo saarin. dowladda Ethiopia inta ugu badan dhaqaalaheeda marka ay wax soo dhoofsanayso iyo sidoo kale marka ay wax dhoofinayso waxa ay isticmaashaa dekadaha dalka Djibouti ku yaala halkaas oo dowladda Ethiopia looga sameeyay canshuur dhaaf jidka tareenka ee Ethiopia soo gala ayaana ka soo baxa gudaha dalka Djibouti alaabaha kala gedsanna ka soo qaada dekadaha dalkaasi sidoo kalena maciishada iyo waxyaabaha dalka Ethiopia laga dhoofiyo inta Addis Ababa iyo Dirdaba inteeda kale ka qaada Djiboutina geeya si halkaas caalamka looga iibgeeyo. haddaba saaxiibayaal warbixintan oo BBC-da qaybta markaas afka oramada lagu qoray oo aan idin soo turjumnay ayaan idin bilaabayaa sidan ayay ku bilaabatay. Masar ayaa lagu soo waramayaa inay ka qayb qaadanayso dhismaha dekad cusub oo ay ka samaysanayso dalka Djibouti oo dal daris la ah Ethiopia ayaa la yiri. labadan dal waxay sanad ka hor kala saxeexdeen heshiis isfahan oo loo yaqaan MOU oo ku saabsan horumarinta dekada iyo sidoo kale arrimo kale waxaana la sheegay in hadda loo dhaqaaqayo fulinta heshiiskaas sanad hore la gaaray. wararku waxay imaanayaan xilli Ethiopia ay si xoogan u raadinayso marin badeed rasmi ah oo iyadu ay yeelato si gaarana dekada Casab markaas ay xoog u saarayso sidii ay u soo ceshan lahayd. maadaama ayaa la yiri Djibouti ay u tahay halka kaliya ee wax soo dejinta iyo sidoo kale dirista alaabtadeedu ay marto. Ethiopia ayaa laga hadlayaa haddii ay wax soo dhoofsanayso waxna sii dhoofinayso inta ugu badan waxay martaa dekadaha dalka Djibouti. warbaahinta gudaha ee Ethiopia ee lagu magacaabo Capital ayaa soo xigatay ila sheegaya in heshiiska dhismaha dekada Masar ay saameynayso Djibouti ama ay ka sameynayso Djibouti la filayo in dhawaan la soo gabagabeeyo. Masar oo aan ku qanacsanayn biyo xireenka Abay ee ay dowladda Ethiopia ka sameysay webiga Niilka ayaa waxa ay xiriir wanaagsan markaasi la sameysay dowladda dalka Eritrea oo ay Ethiopia xilligan xiriir aan wanaagsanayn iyo sidoo kale khilaaf aad u adag ay kala dhaxayso. waxayna u muuqataa inay kordhinayso saameynteeda gobolka maadaama dalal dhowr ah oo Ethiopia xuduud la geeska Afrikana ku yaala heshiisyo military ay la gaareen. haddaba maxay Masar ka damacsan tahay dekadan cusub ee markaasi ay ka kireysatay ama ay ku maalgelinayso dalka Djibouti? maxayse uga dhigan tahay dowladda Ethiopia? maxay Ethiopia ka sameyn kartaa? maxayse Masarse ma weeraraysaa Ethiopia? qodobadaas ayaa sidoo kale warbixintan lagu cadeeyay. wararka ayaa sheegaya baa leeyahay in Masar ay doonayso inay Djibouti ka fuliso maalgashi weyn ayna jiraan warar sheegaya in maalmaha soo socda wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Masar ninka lagu magacaabo Kamal al-Waziri ay Djibouti booqan doonaan si heshiiskaasi loo dhameystiro sidoo kalena loo saxeexo. ka hor booqashadan ay dowladda Masar wafdiga culus ugu soo diraysa Djibouti 3 November ee bishan ay ku guda jirno 2025 gudoomiyaha maamulka dekadaha Djibouti ninka lagu magacaabo Abubakar Umar Hadi ayaa la kulmay wafdi sare oo ka socday dowladda Masar lana tilmaamay inay waxyaabaha dekedan ku saabsan ay ka wada hadleen. Masar maxay qorsheynaysaa? inay dhisto dekad cusub oo nooca loo yaqaano SGTD ah oo isticmaasha koronto ka soo baxda qoraxda ama solarka kaasoo gaaraya 20 megawatt ayaa la tilmaamay inay dowladda Masar doonayso inay ka hirgeliso Djibouti. qodobka labaad ayaa waxa la yiri inay samaysato
aag logistic ah oo gaaraya 10 hektar oo markaas dhulka dalka Djibouti ah. Logistic markaad maqasho waxaad dareemaysaa saanad iyo markaas waxyaabo gooni ah dalkaasi inay tahay. Etoobiyana arintaasi inaysan yeelaynin hadee waa laga tabaroonaan karaa waad ogtihiin. saddex inay dhisto terminal cusub oo u adeegi doona badeecadaha la dhoofiyo badeecadaha dalka Djibouti laga dhoofiyo terminal u qaasa ayaa halkaas laga sameyn doona. Tani waxay kor u qaadaysaa awoodda ganacsi ee Djibouti iyo dawladda Masar markaas dhexmaraya. Maxay uga dhigan tahay Ethiopia dhaqaalaha iyo arintan soo cusboonaatay ee Masar iyo markaas dawladda Djibouti ay ku heshiyeen saameynta tooska ah ee dhismaha dekada Masar leedahay waligeed si cad looma ogeyn mana jirto hadal rasmi ah oo Ethiopia markaas ka soo baxay oo arintan ay uga hadlayso. Laakiin falanqeeyaal Ethiopia u dhashay waxay arintan u arkaan tallaabo siyaasadeed oo ay Masar ugu tala gashay inay Ethiopia ku cadaadiso gobolka maadaama dalal dhowr ah oo Ethiopia daris la ah ay markaas saaxiib la noqotay. Falanqeeyaha Geeska Afrika oo lagu magacaabo Dr. Nagara Gudata oo markaas dalka Ethiopia u dhashay waxa uu leeyahay Masar dekad badan ayay leedahay oo ku dhow laakiin sababta ay rabto inay Djibouti uga dhisato dekad cusub waxay ka mid tahay qorshahooda ay Ethiopia ku saameynayaan kolka laga eego khilaafka biyaha webiga Niil ee labada dawladood u dhaxeeya. Ninkan wuxuu leeyahay waxyaabaha ay Masaaridu u sameynayaan talaabadan waxa ay tahay inay Ethiopia markaas cadaadis xoogan ku saaraan sidoo kalena ay daris la soo noqdaan goob Ethiopia istiraatiiji ah dhaqaalaheeda wax dhoofsi iyo wax soo degitaanba markaas uu maro. Ethiopia iyo Masar waxa muddo dheer u dhaxeeyay muran ku saabsan biyo xireenka weyn ee Abaay ee dawladda Ethiopia ka sameysay webiga Niilka inkastoo oo Ethiopia dhismaha dhamaysay oo xirtay shaqadiisii Masar wali waxa ay rabtaa inay hesho damaanad siyaasadeed oo ku saabsan sida biyahaasi loo maamulayo. Masaaridu waxay leeyihiin qulqulka biyaha webiga Niilka hadduu hoos u dhimo annagu waan dagaalamayna. Dr. Nagara waxa uu intaasi ku daray Masar waxay dhismahan u aragtaa kaad cadaadis oo ay Ethiopia u isticmaalayso mana aha mid si buuxda u hergeli kara oo khatar ku noqon kara Ethiopia ilaa heel military ayuu leeyahay. Dhinaca kale waxaad moodaa dawladdiisa markan inuu seexinayo oo leeyahay haddii dawladda Masar ay markan dekedan isticmaasho cadaadis xoogan Ethiopia kuma leh laakiin sida saxda ah marka la fiiriyo Masar oo Djibouti dekad ka qabsata saldhig military halka ku yeelata Ethiopia waxay u tahay cadaadis aad u xun iyo sidoo kale arrin diblomaasiyadeed iyo saaxiib Ethiopia u fiicnaa oo markaas laga dhaxbixiyay. haddii dekada ay si dhaba u shaqeyso waxay muujinaysaa in xiriirka Djibouti iyo Ethiopia uu daciifay ayuu hadalkiisa sii raaciyay. Waxa uu yiri haddii marinka badda ee Ethiopia ku tiirsan tahay ay u gacan gasho dal cadow u ah oo Ethiopia khatar ku ah taasi waxay khatar amni oo heer qaran ku tahay guud ahaan dalka Ethiopia. Markan ayuu soo wada baxay ujeedada Masar ayuu ku soo koobay inay Ethiopia saameyn ku yeelato oo ay ku cadaadiso inay ka noqoto biyo xireenka ay ka dhistay webiga Niilka sida uu hadalka u dhigay. Masar ma weeraraysaa Ethiopia ayaa warbixinta ciwaan kale looga dhigay. Inkasta oo aysan Masar iyo Ethiopia xuduud wadaagin haddana dhibaatooyin badan oo siyaasadeed ayaa ka jira dhexdooda muddo dheer. kahor baa la yiri inta aan la dhisin biyo xireenka Abaay xiriirka labada dal waxa uu ahaa mid xun. Ethiopia waxay muddo dheer Masar ku eedeysay inay taageerto kooxaha hubeysan ee dawladooda la dagaalama. markii Ethiopia ay tallaabooyin badeed ama heshiisyo badeed la qaaday ama la gashay Somaliland xiriirka ay la leedahay Soomaaliya wuu xumaaday. Masar oo arintaas ka faa'iideysanaysana waxa ay taageertay dawladda Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamuud. dawladda Masar sidoo kale waxay xiriir dhow la samaysatay Eritrea oo iyaduna Ethiopia markaas ay kala weecdeen khilaaf adag oo markan dagaal inuu noqdo isu bedela laga cabsi qabana uu markaas ka dhaxeeyo. taliyaha ciidanka Ethiopia ninka lagu magacaabo Field Marshal Birhanu Julla ayaa hore waxa uu yiri Masar waa cadowga hore ama waa cadowgii hore ee soo jireenka ah ee dawladda Ethiopia. taariikhdan oo dhan iyaga ayaana dhibay ayuu yiri madaxa ciidamada militariga ee dalka Ethiopia. waxa uu yiri iyaga ayaa Eritrea nagu diray sidoo kale Eritrea iyo baddeeniba inay naga fogaadaanna Masar ayaa ka dambeysay ayuu sii raaciyay taliyaha ciidamada militariga ee dalka Ethiopia. dhinaca kale waxa uu tilmaamay inay hub military markaas siiyaan
TPLF iyo jabhadda Oromada ee loo yaqaano markaasi Ola sida madaxa ciidamada militariga ee dalka Ethiopia uu sheegay. Intaasi waxay warbixintu ku sii dartay arinta la xiriirta biyo xireenka weyn ee webiga Niil ee dowladda Ethiopia ka sameysay Abyei loo yaqaano. Waxaa la tilmaamay in khilaafka Masar iyo sidoo kale dowladda Ethiopia uusan noqonayn kii ugu dambeeyay sidoo kalena uusan ahayn kii ugu horeeyay. dadka si xoogan u diidan in Ethiopia albaabadeed ka hesho badda cas waxa ugu muhiimsan ayaa la yiri dawladaha Masar iyo sidoo kale dawladda wadanka Eritrea. Hadda ugu Soomaaliya lama dhihin, Djibouti lama dhihin, sidoo kale Suudaan lama dhihin oo intuba daris la dalka Ethiopia. Waxa la yiri Masar oo xuduud aan lahayn dalka Ethiopia ayaa kamid ah dawladaha sida adag u doonaya markaan inaysan Ethiopia badda cas gaarin. Dhawaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ninka lagu magacaabo Badir Abdallati ayaa sheegay in maamulka badda cas aanu khuseynin dawladda Ethiopia oo ay kaliya ka hadli karaan dalalka baddaasi ay marto. Sababtoo ah uu yiri Ethiopia waa wadan aysan baddu markaasi wax maritaana iyo wax xuduuda midna aan la lahayn. Iskaashiga dalalka badda cas oo ay hogaaminayso Masar iyo sidoo kale dalka Sacuudigu hogaaminayaan ayaa bilaabay tababar ciidan badeed oo loo yaqaano Red Wave 8 ama Red Wave 8 oo ay ka qayb galayaan 4 dal oo kale oo lagu sheegay inay kala yihiin Djibouti, Yemen, Eritrea iyo sidoo kale dalka Suudaan. Masar waxay xiriir aad u dhow la leedahay dalalka Ethiopia dariska la ah sida Eritrea, Soomaaliya, Djibouti iyo Suudaan iyo sidoo kale dalka Eritrea. waxay sidoo kale ka shaqeynaysaa inay xiriir adag hadda la yeelato dawladda Djibouti. Suudaan gudaheeda waxay taageertaa ciidanka militariga ee hogaankooda iyo si gaar ah Abdulfataax al-Burhaan halka ay doonayso inay xiriir wanaagsan la samaysato koonfurta Suudaan. taasi haddii ay dhacdana Ethiopia waxay galaysaa markii hore Abiy Ahmed landlock oo dhinaca badda ayuu sheegay landlock oo xabsi caadi ah oo ay Masaarudu markaas ka dambeeyeen ayaa Ethiopia galaysaa. Isla toddobaadkan madaxweynaha Masar Abdulfataax al-Sisi ayaa telefoon kula hadlay dhigiisa dalka Kenya William Ruto waxaana la tilmaamay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira biyo xireenka Abyei ee ay dawladda Ethiopia samaysay. Dr. Nagara oo markaasi falanqeeya Ethiopia u dhashay ah arrimaha Ethiopia iyo siyaasadda gobolka ka hadla waxa uu yiri ujeedadoodu waa Masar waa inay Ethiopia wareeriyaan ama wareejiyaan ama ay isku wareejiyaan oo ay cabsi galiyaan ayay talaabooyinkan faraha badan markaas Masaaridu u sameynaysa ayuu leeyahay. waxaanu intaas ku daray dhaqdhaqaaqyadan Masar waxay bilaabeen xilli aan wali Ethiopia bilaabin in ay biyo ku shubto biyo xireenka Abyei ee webiga Niil ay ka hirgelinaysay iyagoo doonaya inay taageero ka helaan dalalka dariska la ah Ethiopia. maxay Ethiopia sameyn kartaa ayaa iyadana kamid ah ciwaanada warbixintan lagu daabacay. Waxa la yiri markii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed xilka qabtay safarkiisii ugu horeeyay ee uu dibadda ku tagay wuxuu ku tagay dalka Djibouti oo Ethiopia daris la ah. Djibouti iyo sidoo kale Ethiopia waxa ka dhaxeeya xiriir xoogan laakiin arintan ku saabsan marin badeedka Ethiopia ka dalbatay ama Ethiopia dalbatay waxay ahayd meel ay Djibouti ka soo horjeesatay dawladda Ethiopia ee Djibouti markii ay Abiy Ahmed iyo xukuumaddiisu dhaheen ayaanu dekad ka rabnaa arintaasi si adag ayay markaas uga soo horjeesteen. markii Ethiopia heshiiska ay la gashay Somaliland ee ku saabsanaa marin badeed iyo sidoo kale dekad Somaliland laga kareysanayo Djibouti waxay u soo jeedisay dawladda Ethiopia inay isticmaasho dekada lagu magacaabo Tachura oo markaas kamid ah dekadaha waaweyn ee dalkaasi Djibouti. si kastaba wararkii ugu dambeeyay ee markaasi ka soo baxay isla dekadaasi waxa ay sheegayaan in Sacuudi Carabiya iyo dawladda Djibouti ay ka heshiiyeen ama ay heshiis ku gaareen horumarinta dekadaasi. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaana dekadii Ismaaciil Umar Geelle uu horay ugu ballan qaaday Ethiopia ee Abiy Ahmed iska diiday la leeyahay hadda iyaguna taas ay maalgelinayaan. waxaana meeshaas muuqata in dhulkii iyo dekadihii markaasi dalka Djibouti ku yaalay la kala qaybsaday Ethiopiana meel cad oo aan la aqoon ay taagan tahay. Djibouti waa dal yar laakiin meesha ay ku taalo ayaa ka dhigtay baa la yiri mid qiimo weyn leh sababtoo ah waxay saaran tahay badda cas. qiyaastii 12 ilaa 15% ganacsiga adduunka iyo sidoo kale 30% konteenarada caalamka ayaa mara badda cas iyo sidoo kale gacanka cadmeed oo Djibouti iyo markaasi dalka Yemen daris la ah. tani waxay hoos u dhigtaa baa la yiri kharashaadka iyo waqtiga safarka u dhaxeeya
qaaradaha Aasiya ama Asia iyo sidoo kale qaaradda Yurub. sidaas darteed baddaas waxay noqotay meel istiraatiiji ah oo dunidu u aragtay marin muhiim ah, waana sababaha ugu weyn ee markaas Abiy Ahmed uu doonayo inuu u galo dekedaasi. Ethiopia deked ma lahayn sanado badanna waxay adeegsan jirtay dekedaha Djibouti intii ka horeysay Eritrea inay xornimada qaadatay 1993diina waxay si cad u adeegsan jirtay dekeda Casab iyo sidoo kale dekeda Masawa oo markaasiba kamid ahaa dhulka dalka Ethiopia 30 sano ka hor wixii ka horeeyayna Ethiopia bad ay ahayd markii laakiin dawladda Eritrea ay dawlad noqotay Ethiopia waxay noqotay landlocked oo markaasi baddaas waa ay ka dhamaatay. taasi waa sababta baa la yiri Ethiopia ay mar kale u doonayso marin badeed si ay toos ah iyadu ay u maamusho oo markaasi cid kale aysan u daba fadhin. Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in arrinta baddaas ay tahay arrin sharci, taariikhi, juqraafi iyo dhaqaalaba ku saabsan intaba. waxa uu leeyahay sharci ayaan u leenahay inaan helo, taariikhdeena ayaa ogol oo horey aan u lahaan jirnay, juqraafiyadana waa uu muhiim ayuu leeyahay, dhaqaalahana iyadana Ethiopia dhaqaalaheeda inay ku xiran tahay ayuu Abiy Ahmed marar kala gudsan u cadeeyay. ninkan falanqeeyaha ah markaasi BBC-da laanta afka Oromadu ay la xiriirtay lagu magacaabo Dr. Nara oo isla arrintan ka hadlay waxa uu yiri Ethiopia waa inay ka shaqeysaa diblomaasiyad tayo sare leh. Ethiopia haday doonayso buu yiri inay arrimahan ku guuleysato diblomaasiyadeedu waa inay wax ka dhigtaa. tan waxay noqonaysaa ayuu leeyahay markii labaad oo Ethiopia laga guuleysanay arrimaha diblomaasiyadda. Soomaaliya ayaa hore uga guuleysatay, haddana Masaarida ayaa wadankiiba 4 gees markaasi ka joogta ayuu leeyahay. waa inay xiriirkeeda dariska hagaajisaa, gaar ahaan Djibouti waa inay si toos ah ula xiriirtaa ayuu leeyahay ninkan Oromada ah ee markaasi la tilmaamay inuu falanqeeyo arrimaha siyaasadda Ethiopia yahay. waxa kale oo uu sheegay in Ethiopia u baahan tahay inay xaliso dhibaatooyinkeeda amniga gudaha oo markaasi iyaduna colaad xooggan ay ka taagan tahay. sidoo kale waxa uu ku taliyay arrintan inay tahay mid walwal leh, waxa uu tilmaamay in dawladda Ethiopia ay u gudbiso midowgeeda ama mowqifkeeda ururada midowga Afrika iyo sidoo kale IGAD si xal loo helo ayuu leeyahay. dawladda Ethiopia waxay hadda ku qasban tahay ayuu leeyahay inay markaas tallaabo qaado. saaxiib beel waxa muuqata dawladda Ethiopia cadaadis kala gedsan oo xooggan ayaa haysta marka loo fiiriyo amniga gudaha oo jabhadaha Faano Ola iyo TPLF markaasi ay dhaqdhaqaaqyo military ka wadaan. dhinaca kale Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia meesha ay kala taagan yihiin waad ogtiin haddii aad la socoteen warbixinadeennii hore ee aan halkan idinku soo gudbinay. sidoo kalena dawladda Ethiopia Eritrea waxay ku eedeysay inay jabhadahaas iyadu ay taageerto. haddana Masar ayaaba ku soo biirto waxa la leeyahay saanad military ayay TPLF iyo sidoo kale Ola iyo jabhada Faanaba markaasi dawladda Masar iyo Cabdi Fattah al-Sisi ay la garab taagan yihiin si amniga gudaha ee dalka Ethiopia loo wiiqo Abiy Ahmedna meesha looga saaro. intaas oo dhan intii la isla soo dhaafay hadda Djibouti oo dal Ethiopia saaxiib dhow la ahaa 30 sano markaas TPLF iyo hogaamiyadii kala gadsambeysay marka Ethiopia ka hogaaminaysana waxa si cad u muuqatay halka dhaqaalaha ama isha dhaqaalaha Ethiopia inay ahayd dalka Djibouti oo dekedahaas markaasi si canshuur dhaafa ay alaabahoodan uga soo degsanayeen waxna uga dhoofsanayeen. tiina hadda Masar ayaa soo fadhiisatay saldhig military iyo marka wax dekad lagu tilmaamay laakiin saldhig military ah marka qaabka warbixinada looga qoriyo aad u fiirsato ayaa Masar ay ka heshay dalka Djibouti. arrintaas oo dhibaato weyn ku ah markaas dawladda Ethiopia. sidoo kale Masaaridu ciidamo iyadu ay leedahay ayaa waxa ay u dirtay dalka Soomaaliya halkaasi oo la tilmaamay inay ciidamadaasi kuwa Afrika midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ay qayb ka noqonayaan. Kenya waxa la tilmaamay inay wada hadal u socdaan. Eritrea horey bay u joogeen. Suudaan haddii ninka ciidamada hogaamiye uu guuleysto iyada dhankooda ayuu jiraa. marka si guudba xaaladda Ethiopia haddii ay noqoto gudihii iyo haddii ay noqoto dibadiiba waxa muuqata siyaasadda Abiy Ahmed inay noqonayso mid aad fadhiid u ah oo haddii uusan wax ka bedelin markaasi noqonaysa inay ama Ethiopia burburto ama xukunkiisu halkaasi ku soo gabagaboobo. saaxiib beelitaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena kooban oo aan arrimihii ugu dambeeyay ee khilaafaadka Eritrea, Masar iyo dalka Ethiopia ka dhaxeeyaan kaga hadlayay. Cabdulqaadir Maxamed ayaan ahay. waad ku mahadsantiin la socodka barnaamijyadeena saaxiibayaal. nagu soo biir oo barteena YouTube-ka Magan Media subscribe ku samee. sidoo kalena soo follow garay bartaan Facebook-ka ku leenahay ee isla Magan Media muuqaalkana la garay. sidoo kalena saaxiibada la sii wadaagsi meel dheer u gaaro. intaan kulmi doono muuqaalkeena xiga sidaas iyo nabadgelyo.